halkan waa goobtii uu qaraxu ka dhacay waa isgoyska Banaadir si gaar ah wadada aada isbitaal Madiina nus saac ka hor ayuu halkan qarax aad u xoogan ka dhacay kaasoo ah qarax ismidaamin ah warar oo dhac oo soo baxay waxay sheegayeen in qarax la beegsaday kolonyo ula socday taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole soo baxay ay sheegayeen in Farxaan uu ka badbaaday qaraxan balse ay jiraan khasaare kala duwan oo soo gaaray لايف كبح